ehel ma badoonin inay noo imaadaan sababtoo maanta kale ehel anaga nama anfacayo waxaan anfacaya kaliya laamaha ammaanku inay gacan ku dhigliga gacantooda ku soo dhigaan garabkeygiyaa go-ay geeriyaana noo timid buulansa ku aqaan gardaraasa loo dilay gartu waa cadaalada aawa gacan ku dhiglihi marka hore banaanka nagu yilma oo shalay lasoo duuginti ka horreysay ninkii baxsaday waa laydii raadinaa nagula mermeerina wax naloo keenay la hadda meen kaar dowladeed iyo qoro sharci lahoo laga geda maaliyadda maxay ahayd gaadiidka laga qaaday in uu dowladda dhexdeeda wax ku dilo way dhici kartaa oo shaydaama ka qaalib yeeshay laakiin inuu ku faka karo ma u haysano askariga dilka u geystay marxuum Carab Cali dariisku huban yahay hubka iyo rasaasta uu ku dilay marxuumka labaduba waxay dowladda Soomaaliya ka gaday canshuurta laga qaaday marxuumka iyo shacabka kale ee Soomaaliyeed waa hadal dhiila xambaarsan waxaana sidaas yiri mid ka mid ah ehelka marxuum Carab Cali oo muddo isbuuc ka hor ah dil lagu geystay bar kontarool oo ku taala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir mana jirto wax cadaalad ah oo ay weli heleen qoyska marxuum Carab Cali oo ilaa haatan aan la soo qaban dambiilihii dilka u geystay marxuumka waxayna sheegeen in qoyskan ay ku kalsoon yihiin dowladda Soomaaliya hay'adaha ammaanka laamaha garsoorka intaba ay uga fadhiyaan inay gacanta ku soo dhigaan dilaaga dilka u geystay marxuumka oo ay haatan dilkiisa ka soo wareegatay muddo 7 ah oo aysan weli dowladda Soomaaliya aysan gacanta ku soo dhigin dambiilihii dilkan geystay waxay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ka gaabisay soo qabashada dambiilahan oo ay sheegeen inuu ka baxsaday gacmaha hay'adaha ammaanka dareesku ku labisan yahay oo waliba waa taliye la leeyahay ayaa dilay marka cadaalad darro ku dhintay ilaa haddana kama hayno cadaalad dowladda Soomaaliya kulli waxaan isleeyahay doon hadii la galo inaan la weyheynay ila taa laakiin anaga gaabis inuu jiro ayaan tabanaynaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo raadiyaan gacan ku dhiglaha hadii raadiyaan kulli oo xoog la saaro inaan la weyneynayna la taa Soomaaliyana kama bixin oo waliba Muqdisho ku jira marka cadaalad dowladda agteeda Ilaahay agtiisa taala laakiin inay gacan ku dhiglaha soo qabtaan ayaan codsanaynaa ma aaminsan inuu baxsan karo laakiin waxaan aaminsanahay in xogaa gaab uu jiro oo dawladdu ay ka gaabisay arintaas geeyiga Soomaaliyeed ma jirto meel gacan ku dhiglo oo ku baxsan kara askari waliba arif la ah oo taliye unug ah oo bar kontarool loo dhiibay inuu inta qof shacab dilo hadana oo baxsan karo aqligeena ma yeelay taas suurtagalna ma aha in la soo qabto gaabisa ka jiro sababtoo ah hadii sabab lagu way kara ma jirto ninkan waa taliye unug xitaa dable caadi oo manga ma ah waan mas'uul ah bar kontarool dal lagu aaminayo sabab ku faka kara ma jirto laakiin waxaan dareemeynaa in wali manga lagu hayo anaga dawladda aysan dan lahayn in soo qabato sababtoo waqti ku qaadan mayso taliyihii ka horeeya jooga kii ka sii sareeya jooga ilaa taliyihii guutada booliis military aadan jaalaa jooga waxaan aaminsanahay daqiiqadii lagu keenay karo san saacad xataa isku qaadanay hadii uu tala gasho dawladda inay kaanto ehel ma badoonin inay noo imaadaan sababtoo maanta kale ehel anaga nama anfacayo waxaan anfacaya kaliya laamaha ammaanku inay gacan ku dhigliga gacantooda ku soo dhigaan cadaaladana ay marsayaan bis intaasna u baahna aniga wiilkaas la dilay xaaskiisa ah gardaraa lagu dilay oo iska shaqaysanayay ciyaalkiisa uu shaqeeyay waaridkiisa iyo dadkii ka dambeeyay oo dhan marka gardaraa lagu dilay alxamdulillah hadda waa la soo aasay marka ilaahay u naxariistaa leenahay kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo marka cadaalad darro jirto oo hadda gardaraa lagu dilay soo wadada maraya hadana ilaa haddana 6 maalmood ka soo wareegtay maalintii la dilay deertan qof u soo qabatana ma jirto gacan ku dhigli waa intaas waa midaan maqlayno dhibaatada nagu haysaba waxa dhibaatada nagu haayo ilaa saacan midka marka hore banaanka nagu yilma oo shalay lasoo duuginti ka horreysay ninkii baxsaday waa laydii raadinaa nagula mermeerina wax naloo keenay la hadda meen inaan $100 tuuro markuu magaalada Muqdisho ka baxayo oo wadada ku marayo dhaho waa canshuur dawladeed markuu soo galayna aan 100 tuuro oo leedahay had waa canshuur dawladeed oo wadanka lagu ilaalinayo amnigiisa haddana walaalkay loo dilo nin gardariis Soomaaliyeed wato $1 oo walaalkay u dilo taas horta aad uga xumahay geeriduna waa xaq waxaan rabaa gabay inaan ka tiriyo meeshan garabkeygiyaa go-ay geeriyaana noo timid buulansa ku aqaan gardaraasa loo dilay gartu waa cadaalada aawa gacan ku dhiglihi weli garabka maan helin gaashaanka kuwa sida dowladeena gaamidan gaabinkeena kii dilay guriguu ku nool yahay iyo goobta uu galo waa inay ka goobtaa geeyigeena Soomaal hadba meesha uu galo waa inay gucleyso gacan ay ku keentaa cadaaladana geeyaan waxaan codsanaa walaalkay ismali wax ka xanuun badan ku soo mari doono
kaar dowladeed iyo qoro sharci lahoo laga geda maaliyadda maxay ahayd gaadiidka laga qaaday in uu dowladda dhexdeeda wax ku dilo way dhici kartaa oo shaydaama ka qaalib yeeshay laakiin inuu ku faka karo ma u haysano xataa gabar ha ahaatee wax nooga soo tacsiyeeyey qadka xataa ma jiraan waxaan aragna ma jiraan wax noo soo tacsiyeeyey ma jiraan waxataa murugada nala wadaagayo intaan yaacyaacaynayo naftaynuna xabsiyeysnay jasaskiisuna xabsiyeysnay wax nala wadaaga ma aanan arag oon ehelkiisa ahayn